Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ardayay waan is salaamay maalin wanaagsan ama subax wanaagsan ama habeen wanaagsan hadba waqtiga ay kuu tahay. Maanta waxaan baranaynaa shaqalka afka Soomaaliga. Af Soomaaligu waxa uu leeyahay laba shaqal. Waa shaqal gaaban iyo shaqal dheer. Shaqalka gaaban waxaa tusaale u ah a, e, i, o, u. Ama si kale haddii aan u dhaho shaqalka gaaban waa 5 xaraf waana xarfahan. Iga daba akhriya ardayay. Xaraf kasta ama shaqal kasta waxaan dhahaynaa 2 jeer. Isku daya in aad iga daba akhrisaan si dhawaaqa uu idinku saxmo. A, a, e, e, i, i, o, o, u, u. Waxaan halkan aad ka aragtaan shaqalka gaaban oo aan ku qoray far waaweyn iyo isagoo aan ku qoray far yar ah. Macnaha a'da far yar ayaan ku qoray, far weynna waa ku qoray. Xaraf kasta far yar iyo far weyn sida loo qoro ayaad halkan ka aragtaan. Laakiinse waa 5 xaraf keliya shaqalka gaaban. Af Soomaaligu waxa uu leeyahay caruuray ama ardayay shaqalka dheer. Shaqalka dheer waxa weeye xaraf kasta ama shaqal kasta wuxuu noqonayaa 2 xabo. A awal shaqal gaaban buu ahaa laakiin hadda muxuu noqonayaa 2 a waa halkan ka aragtaan. Waxa loogu dhawaaqayaa a. Xogaa in yara dhawaaqa la dheeraysiinaya. Awal a buu ahaa hadda markuu 2 a noqdo muxuu noqonayaa a, e, i, o, u. Iga daba akhriya. Xaraf kasta waxaan dhahaynaa 2 jeer. Diyaar ma tihiin? A, a, e, e, i, o, o, u, u. Markii aad caruuray af Soomaaliga buugtiisa ay akhrinaysaan markaa dhow si fiican wax u barataan waxaad ku arkaysaa dhammaan shaqalka gaaban, shaqalka dheer iyo xarfaha af Soomaaliga horey aan usoo dhiganay. Sidaa daraaddeed haddii aad aragto shaqalka dheer ha la yaabin. Waa inaad si dheer aad u akhrito. Tusaale ahaan adeer baabuur oo kale maxaa ku jira? Waxaa ku jira shaqalka dheer oo 2 a ah. Baabuur. Maxaa kaloo ku jira shaqalka dheer oo 2 u ah, 2 u. Tusaale shaqalka gaaban. Shaqalka gaaban tusaalayaashooda. Tusaale a shaqalka koowaad ee a wax ka bilowda a maxaa ka mid ah arday, abyan. Waxyaalo badan waxaa jira oo ka bilowda xarafka a ee Soomaaliga. E, ey, i, il, irbad, o, orgi, oday, u, ul, ur. Markii xarafka lagu dhawaaqayo ama la dhahayo af Soomaaliga waa inaad horey ka garato in waxa uu ka bilaabanayo. Tusaalehaan haddaan dhaho arday waxaan ka bilaabay xarafka a. 5tii shaqalka gaabnayd tusaalahooda halkan ayaa dabcan aad ku aragteen hadda. Waxaa soo socda tusaalaha shaqalka dheer. Shaqalka dheer oo ahaa a, e, i, o, u. Tusaale ahaan a maxaa ka bilowda aamino, aamus. Muxuu ka bilaabanayaa a. E tusaale waxa uu ah eedo, eedo. Fiiri caruuray eedo ma dhihin hal e ma akhrin laakiin 2 e weye eedo. Iimaan, oomaar, ooman. Haddii lagu dhaho qofkan waa ooman yahay macnihiisu waxa weeye qofkan waa haraadan yahay, haraad baa haya.
unsi, uur, uumi. Uumi waxaa la dhahaa biyaha markii la kululeeyo qiiqa ka baxa ayaa waxaa la dhahaa uumi. Waad fahanteen baan rajaynayaa. waxaan isku dayayaa shaqalka gaaban iyo shaqalka dheerba inaan hal mar idiin soo koobo. Shaqalka gaaban waxa weeye a, e, i, o, u. iga daba akhriya. a, e, i, o, u. shaqalka dheer maxaa weeye a, e, i, o, u. maanta halka waxaa ku barateen shaqalka gaaban iyo shaqalka dheer af Soomaaliga. horeysaan idinku soo sheegay af Soomaaliga wuxuu leeyahay shaqal gaaban iyo shaqal dheer iyo shibanayaal. intaba waad soo dhigateen. isku daya xarfaha muuqaalkii hore iyo muuqaalkanba inaad si fiican u daawataan, isla markaana aad ku celcelisaan dhawaaqa iyo akhriska xarfaha afka Soomaaliga iyo weliba shaqalada. wixii idinku adkaada commentiga hoose waad igu soo weydiin kartaan, ama hooyo iyo aabe iyo walaal ayaad weydiin kartaa. aad u mahadsantihiin. waa macallin Mustafa oo idin leh maalin wanaagsan.